asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kulanti wacan wanaagsan meel walbaad ku sugantiin kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka oo gorahan oo kale aad kala socotaan bogga youtube-ka ee warqaad tube iyo sidoo kale shabakada wararka ee warqaad.com. maanta waa 15 bisha 8 2018 qodobo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkan idigu haya oo ay ugu waaweynaan doonaan haddii eebaha inoo saamaxo wararkii ugu dambeeyey ee Turkiga iyo Mareykanka xiisadii dhex taalay iyo Ruushka oo sheegay inuu soo dhamaanayo waqtigii marka lacagta dollarka ee wadanka Mareykanka, iyada oo sidoo kale Mareykanka iyo Ruushkana la filayo in kulan foolka ay yeelan doonaan. qadarna waxa amiirkooda uu sheegay inuu magaalada Ankara ee wadanka Turkiga uu booqan doono. warar kale oo la xiriira Shiinaha iyo arrimo kale oo caalamka ku saabsan ayaan daawadayaal soo gudbi doona haddii eebaha inoo saamaxo. laakiin waayadii lasoo dhaafay waxaa jiray xiisad xoogan oo ka taagnayd magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba deegaanada ay Soomaalida degto ee Itoobiya. waxaa la soo sheegayaa in shaki la gelinayay jiritaanka ciidamada Liu Police oo ah ciidamada maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii rabshadaha halka ay ka dhaceen. laakiin wararka ka imaanaya deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay sheegayaan in magaalada Addis Ababa looga yeeray wasiirada ku-xigeenadoodii maareeyaashii wakaaladaha gudoomiyaasha 11 gobol ee uu deegaanka Soomaali galbeed ka kooban yahay iyo dhammaan dadka uu xilalka u magacaabay maamulkii hore ee shaqaalaha caadiga ahayn. waxaa caasimada Addis Ababa hore u sii joogay xubnaha golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaalida Itoobiya oo 45 xubnood ka kooban ayna ku jiraan madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka. dadka qaar ayaa sheegaya in sababta mas'uuliyiintaas la isugu yeeray magaalada Addis Ababa ay tahay qiimeyn lagu sameynayo shaqadooda iyo isla xisaabtan. dhanka kale taliye sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa u sheegay BBC-da in aanu hadda jirin qorshe lagu kala dirayo ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liu Police-ka loo yaqaano. sidoo kale Sareeyagaas Maxamed Tasema oo ah agaasimaha xiriirka bulshada wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada Liu Police ay sii jiri doonaan. warkaana waxa uu farxad gelinayaa maamulka Soomaalida Itoobiya maadaama ciidamadan ay yihiin kuwa kaliya ee xoogan ee ka jira deegaanada ee ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka. sanadihii lasoo dhaafay madaxweynihii xilligaas shaqada markaa ka tagay ayaana waxaa lasoo sheegayaa in uu markaa go-aankaas farxad geliyey, inkastoo weli ay haysato markaa arinta ku aadan xiisadii ka dhacday deegaanada dhulka Soomaalida Itoobiya. wahagaag daawadayaal haddii aynu kusii socono wararka kale ee ugu sarreeya dhinaca caalamka, waxaa xiisad xoogan ay ka dhex taagnayd Turkiga iyo sidoo kale wadanka Mareykanka. waxaana cadaadis xoogan uu wadanka Mareykanka saaraya dalka Turkiga sidii loogu sii day lahaa baadiri wadankaas u dhashay oo dowladda Turkiga ay u haysato arrimo la xiriira argagixisnimo. laakiin Turkiga ayaa weli ku adkeysanaya in aysan marnaba baadiriga fasaxi doonin maadaama dembi uu ka galay wadankiisa. sidaa daraadeed sarifka lacagaha dollarka iyo kan liraha ayaa hoos markaa u dhacay wadankaasi Turkiga, taas oo keentay in qalalaaso dhinaca ganacsiga ah iyo dhaqaalahaba wadanka Turkiga uu galo. dhowr mar ayuu madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan uu ku celceliyay in marnaba aysan hoos noqon doonin Turkiga, isla mar ahaantana ay jawaab walba oo ay kula dagaalamayaan Mareykanka ay bixi doonaan. dalka Turkiga ayaa la soo sheegaya haatan inuu kordhinayo inuu cadaadiska ugu xoogan uu saaro waxyaabaha inta badan looga keeno wadanka Mareykanka sida alkoholada ama qamrada, tubaakada iyo sidoo kale gaadiidka. qorshahana waxa uu ka mid yahay mid uu madaxweyne Erdogan uu xil hore ku dhawaaqay. amarka Erdogan ayaa sidoo kale dhigaya in kor loo qaado sicirka ama taxiska ama canshuuraha waxyaabaha wadanka Mareykanka laga keeno. madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Fuad Aktay ayaa boggiisa Twitter-ka ku sheegay in waxyaabaha Mareykanka uga yimaada canshuur xoogan leh la saarayo, taas oo jawaab u ah weerarka dhanka dhaqaalaha ee maamulka Mareykanka ay ku qaadeen Turkiga. waxyaabaha ugu badan ee Mareykanka ka yimaada sida weyn Turkiga canshuurta ugu soo ridaya waxaa ka mid ah gaadiidka, bariiska, qamrada iyo sidoo kale tubaakada. sidoo kale waxaa jira waxyaabaha cosmeticada ah ama waxyaabaha loo isticmaalo in la ismariyo sida kareemada oo kale oo wadanka Mareykanka inta badan ka yimaada. jimcihii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay inay ka aargoosan doonaan Mareykanka kadib xayiraadii uu ku soo rogay shirkadaha soo saara aluminiumka. sidoo kale weli dhaqaalaha wadanka Turkiga ayaa ah mid aanan sal lahayn,
laakiin turkiga waxa uu helayaa taageeradii ugu badnayd maadaama dowlado saaxiibo ah uu leeyahay. dowladda wadanka ruushka ayaa waxa ay markaa u muuqataa in ay maraykanka ku cadaadinayso in dhaqaalaha uu kula dagaalamayo wadanka turkiga in hoos loo dhigi doono. Sergey Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda wadanka ruushka oo ku sugan magaalada Ankara ee caasimada wadankaas, ayaa waxa uu tilmaamay in labada wadan waa turkiga iyo sidoo kale ruushka ay samaysan doonaan xiriir ganacsi oo aad u sareeya, sidoo kalena arrimaha ay la kaashan doonaan wadamo kale oo quwad ku leh caalamka. Lavrov oo ka hadlayay shir jaraa'id oo Ankara uu ku qabtay ayaa waxa uu tilmaamay in uu dunida kasii dhammaanayo doorkii lacagta doolarka ah ay ku lahayd caalamka. waxaana uu yidhi waxaan ku kalsoonahay in si geesinimo leh aan u sheego in lacagta doolarka ah ay kasii dhammaan doonto guud ahaanba caalamka, maadaama hadda la dareemayo daciifnimada lacagta oo uu ula jeeday in wadan walba uu xaq u lahaan doono in lacag doolara uusan isticmaalin. wadamada ugu badan ee caalamka ayaana si doolara wax u kala iibsada marka loo fiiriyo ganacsiga dhex yaala. diblomaasiyiin wadanka ruushka ka tirsan ayaa waxa ay horey u sheegeen in ganacsiga dhex maraya wadamada ruushka iyo sidoo kale turkiga ay wadan walba isticmaali doonto lacagta waa lacagta qaranka, taas oo meesha ka bixinaysa lacagta doolarka ah. waxa uu yidhi in la isticmaalo lacagaha qaranka ganacsi walba oo wadamada dhex mara waxa ay wax wanaagsan u tahay labada wadan ruushka iyo sidoo kale turkiga. Lavrov ayaa sidaa tilmaamay. waxaa sidoo kale uu tilmaamay in ganacsi kaas lamid ah uu dhex mari karo turkiga iyo sidoo kale Iran. sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo markaa taageero xoogan siinaya wadanka turkiga oo aad uga soo horjeeda dhinaca iyo dhaqdhaqaaqyada wadanka Mareykanka. sidoo kale nambaro kale oo kamid amaba wadamo kale oo badan oo lacagta doolarka si weyn u isticmaali jiray ayaa hadda u muuqda in ay arrimaha joojinayaan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu markaa arrimo ganacsi ama loolan ganacsi uu la galay wadanka turkiga. ayaa hadda wadamo ku yaala xataa qaaradda Afrika waxay bilaabeen in wadanka turkiga ay kula ganacsadaan lacagta qaranka wadamadooda, waxaana wadanka kamid ah wadanka Nigeria, sidoo kale wadanka Iran, sidoo kale wadanka Ruushka. waxaa kaloo jira wadanka Shiinaha oo kamid ah wadamada dhaqaalaha ugu horumarsan caalamka. waxaa wadamada kale kamid noqon doona wadamada Qatar iyo sidoo kale wadanka Pakistan oo ganacsiga ay leeyihiin wadanka turkiga u isticmaali doona lacagahooda qaranka. heshiis horey ay u dhaqan galay ayaa waxaa dhex maray dowladaha Nigeria iyo sidoo kale wadanka Ruushka, kaasoo xukuumadda Pyongyang iyo ta Nigeria u ogolaanaya in lacagta wadamadooda ay ku kala ganacsadaan halkii markii hore doolarka la isticmaali jiray. taasna waxa ay soo yareynaysaa awoodii lacagta doolarka ay ku lahayd guud ahaanba caalamka. dhinaca kalena China ayaa waxaa la filayaa in ay ururka ganacsiga adduunka ee loo soo gaabiyay magacooda WTO ay u gudbiyaan arrimo ka dhan ah lacagta doolarka oo uu maamulka madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump u adeegsanayo ganacsi si qaldana. Trump ayaa waxa uu hadda si weyn wadankiisa uu ugu ololeynaya sidii lacagtooda ay qaali u noqolahay, taas oo soo xiraysa ganacsiga wadamada kale ay lahaayeen. laakiin Shiinaha ayaa waxay tilmaantay in arrintan ay tahay qalalaaso keeni karta in ay dhacaan isku dhacyo dhinaca dhaqaalaha loo mara. wasiirka dhinaca markaa dhaqaalaha ee xukuumadda Beijing oo wadanka Shiinaha ayaa waxa uu tilmaamay in Mareykanka uusan marnaba ka dhigi doonin lacagta doolarka Mareykanka mid uu sida uu doono u isticmaalo, maadaama ay shiraan xiriiro ganacsi oo horey u kala saxiixdeen Washington iyo Beijing oo ka badan ilaa iyo 34 bilyan, taas oo ay tahay in markaa heshiisyada lagu dhaqan geliyo qaabka doolarka. laakiin haddii madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu ku adkaysto in uu si qaldan u isticmaalo tartanka dhaqaalaha, taas ay ka dhignaa karto in ay dacwad u gudbiyaan ururka ganacsiga adduunka. waxaana ay tilmaameen Shiinaha in ay ka kabsan doonaan wax walba oo dhibaato oo arrimaha uga yimaada. dhinaca kalena madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha wadanka Jarmalka la yiraahdo Angela Merkel
ayaa waxa ay qadka telefoonka ku yeesheen wadahadal xasaasiya iyadoo la filayo in madaxweynaha wadankaasi turkiga uu booqasho lama filaan uu ku tago wadanka Jarmalka. arrintaana waxa ay kusoo aadeysaa xilli turkiga uu raadinayo markaa taageero markaa uu ka helo wadamada caalamka maadaama xiisad ay kala dhexeyso wadanka Mareykanka. Erdogan iyo sidoo kale Angela Merkel ayaa waxa ay sidoo kale ka wada hadli doonaan xiriirka labada wadan. kulankan waxa uu ka dhici doonaa dhamaadka bisha September magaalada Berlin, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan in xiriirka labada wadan oo ahaa mid aan wanaagsaneyn hadda ay ka dhignaa doonto in ay isku soo dhawaadaan. madaxweynaha wadankaasi turkiga Erdogan ayaa dhowr mar booqasho uu ku tagi lahaa wadanka turkiga baajiyay, laakiin waxaa la tilmaamayaa in hadda Angela Merkel iyo isaga ay diyaar u yihiin inay kulanka foolkafool ay yeeshaan. waxaana kulanka ka horeey doona kulanka hogaamiyaha wadankaasi Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin ay yeelan doonaan dhowaan, kaas oo ah mid kale oo xasaasiya. dhammaan dowladaha Yurub iyo sidoo kale Turkiga waxa ay ka mideysan yihiin in laga soo wada horjeeto go'aankii ay dowladda wadanka Mareykanka cunaqabataynta ay ku saartay wadanka Iran, isla mar ahaantaana ay u jibisay go'aankii ama heshiiskii ku aadanaa arrinta nuclearka Iran xilli hore lala galay, inkastoo weli dowladahaas midowga Yurub ay heshiiska ku jiraan. isla arrimaha turkiga intaynu ka bixin, inkastoo xiisada turkiga iyo wadanka Mareykanka ay gaarsiisan tahay heerkii ugu sareeyay, haddana wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka turkiga ayaa waxa uu tilmaamay in dalkiisa uu helayo taageeradii ugu badneyd ee caalamka. waxa uu tilmaamay in dhacdadan ay furtay indhaha caalamka, isla mar ahaantaana ay markaa tahay tallaabo horey loo qaaday. waxa uu tilmaamay in ay xushmad darro tahay oo xushmad darro ay ku tahay dhammaan adduunka oo idil waxyaabaha wadanka Mareykanka uu sameynayo. waxa uu yiri fiiri, qof walba waxa uu doonayaa in la dhameystiro ama meesha laga saaro isticmaalka lacagta dollarka. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka turkiga ayaa waxa uu tilmaamay in adduunka hadda uu wadanka turkiga uu garab ka siinayo. waxa uu tilmaamay in wadamo kamid ah midowga Yurub oo dhaqaale wanaag ama xiriir wanaagsan oo dhinaca dhaqaalaha la leh turkiga ay si weyn markaa ula ganacsanayaan turkiga, isla mar ahaantaana aysan wax yar oo isbedel ah xataa aysan ka dhici doonin ama hoos ugu dhici doonin arrimaha la xiriira xiisada labada wadan. sidoo kale waxa uu daaha ka qaaday in Mareykanka uu aakhirka ka shalay doono arrintan. waxyaabaha kale sida weyn loo hadalhayo waxaa kamid ah go-aanka dowladda wadanka Mareykanka ay ku hakisay ama ay dib ugu dhigtay in turkiga laga iibiyo diyaaradaha noocoodu yahay F-35 in ay tahay mid aanan wanaagsaneyn. waxa uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi turkiga go-aankan ay Mareykanku ku hor istaageen diyaaradahan waxa ay tahay mid aanan markaa ahayn mid loo maray qaab wanaagsan. waxa uu tilmaamay in tan aysan wax micnaha aysan sameyneyn, waxaana uu sidoo kale sheegay in turkiga hadda uu haysto laba ka mid a diyaaradahaas oo ay weliba baylodyadii amaba kuwii u wadi lahaa ay u tababaran yihiin, oo xilli horena arrinta ay ka heleen wadanka Mareykanka. wasaaradda difaaca ee wadanka Mareykanka ayaa ay ahayd inuu ku dhawaad 100 diyaaradaha F-35 la yiraahdo uu ka iibiyo wadankaasi turkiga, laakiin xiriirka labada wadan oo xumaaday ayaa dib loogu dhigay arrinta. turkiga ayaa waxa uu isticmaalayay diyaaradaha ama barnaamijkan F-35 tan iyo 1999, laakiin waxa ay hadda u muuqataa in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu doonayo in la soo gabagabeeyo amaba meesha laga saaro heshiiskii labada wadan ka dhex yaalay soo iibshiga diyaaradahan F-35 oo ay ahayd in 100 ka mid ah diyaaradaha ay sida ugu dhaqsiyaha badan turkiga ay u hesho maadaama heshiis hore sida uu dhigay. dhinaca kalena amiirka wadanka Qatar Amiir Tamim bin Hamad Al Thani ayaa qorsheynayay inuu booqasho ku tago wadanka Turkiga Arbacada soo socota, isagoo kulan aan caadi ahayn la yeelan doona madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sida waxaa sheegaya wakaalada wararka ee Qatar ee QNA la yiraahdo. booqashadan waxay ku soo aadeysaa xilli xiisad xoogan ay dhex taalo Mareykanka iyo Turkiga, iyadoo maamulka Dooxan uu garab taagan yahay Turkiga. labada wadan waxaa ka dhaxeeya arrimo muddo dheer ah amaba xiriir muddo dheer ah. Ankara ayaana ah dowladda ugu badan amaba taageerada ugu badan siisay Qatar markii dowladaha Khaliijka ay godoomiyeen.
labada hogaamiye Erdogan iyo sidoo kale Arthani ayaa kulankooda la filayaa in ay natiijo wax ku ool ah kasoo baxdo, iyada oo Qatar dadkeeda iyo dowladeedaba ay taageero xoog la garab taagan yihiin xukuumadda Turkiga. dhinaca kalena xilli ay xiisad ka dhexeyso Ruushka iyo Mareykanka ayaa labada wadan waxa ay isku diyaarinayaan in ay kulan ay ku yeeshaan sida ugu dhaqsiyaha badan. kulanka ayaa magaalada Geneva ku dhexmari doona la taliyaha dhanka ammaanka ee aqalka cad ee wadanka Mareykanka iyo saraakiil Ruushka ka socota. war ka soo baxay White House ama aqalka cad ee wadanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in la taliya Bolton uu la kulmi doono saraakiisha Ruushka. kulanka ayaana daba socda kulankii Donald Trump iyo Vladimir Putin ku dhexmaray magaalada Helsinki ee wadanka Finland bishii lasoo dhaafay. kulanka waa mid lasii qorsheeyay oo lasii diyaariyay, sida waxaa yiri afhayeen u hadlay aqalka looga taliyo wadanka Ruushka ninka la yiraahdo Dmitry Peskov. laakiin labada wadan xiriirkoodu ma ahayn mid wanaagsan, gaar ahaan dhinaca tartanka dhaqaalaha waxa uu ahaa mid adag. sidoo kale wadanka Mareykanka madaxweynahooda Donald Trump waxa uu muuqdaa mid cadaadis saaraya dowladda wadanka Ruushka, isaga oo ku eedeynaya in Ruushka uu mas'uul ka ahaa ama uu ka dambeeyay sirdoon wadanka Ruushka kasoo jeeda oo lagu dilay wadanka Ingiriiska isaga iyo gabadhiisa sanadkan intii lagu guda jiray. waxaase xiisada labada wadan xoog kasii dhigay kadib markii dowladda wadanka Ruushka ay la jirsatay dhinaca wadankaasi Turkiga markii xiriirkooda wadamada uu aad u xumaaday. waa hagaag daawadayaal, wararka kale ee caalamka ugu waaweynaa maanta waxaa kamid ah qarax xooggan oo ka dhacay goob waxbarasho oo ku taala wadanka Afghanistan. wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan waxay sheegtay in ugu yaraan 48 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay xarun waxbarasho oo ku taala magaalada caasimadda ee Kabul, halka ka badan 67 qof ay qaraxa ku dhaawacmeen. booliska Afghanistan waxay sheegeen in qof soo miidaamiyay uu ku orday gudaha xarunta isla markaana uu isku qarxiyay goobta oo arday fara badan ay ku sugnaadeen. wadanka Australia Mahreen Faruqi ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay oo muslima oo ku biirta aqalka sanadka ee wadanka Australia. Faruq oo ku dhalatay wadanka Pakistan ayaa u sheegtay BBC-da in mustaqbalka Australia uu sii xoogeysanayo dadka kala duwan ee ku wada nool wadanka. haweeneydan ayaa loo doortay xildhibaanka cusub ee koonfurta Wales iyada oo matalaysa xisbiga Greens maalintii Arbacada ahayd si u buuxiso kursigaas oo muddo banaana. booliska dalka Ingiriiskana waxa uu magacaabay ninkii gaariga mariyay jidgooyooyinkii ammaanka loogu talagalay ee yaalay banaanka dhismaha baarlamaanka ee magaalada caasimadda ee London talaadadii lasoo dhaafay. waxaanay ku sheegeen magaciisa Saleh Khater. waxay sheegeen inuu yahay muwaadin oo dhalasho ahaan Britain haysta balse isla ahaan kasoo jeeda wadanka Sudan. waxaana la rumaysan yahay in hay'adda sirdoonka MI5 iyo booliiska argixisada la dagaalama aysan la socon arrinkan, balse booliis kale ee caadiga ay aqoon u lahaayeen. 2 ruux ayaa isbitaalka loo qaaday markii uu dhibka dhacay, markii dambe ayaana laga saaray halka 1 ruux oo kalena isla goobta lagaga daaweeyay dhaawacii soo gaaray. ugu dambeyntiina waxaa la soo sheegayaa in la badbaadiyay 141 tahriibiyaal ah kuwaas oo hadda ku sugan dalka amaba jasiiradda Malta. dadkan waxa ay 5tii maalin ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen badda, mana jirin cid haba yaraatee badbaadisay, laakiin ugu dambeyntii waa la soo badbaadiyay. dadkan ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay isugu jiraan Soomaali iyo sidoo kale ajaanib kale oo wadamo kale ka yimid. laakiin dowladaha Yurub ayaanan wax go'aan ka gaarin qaxootigan faraha badan ee kusoo qulqulaya Yurub, waxaana wadamada qaar lagu cadaadinayaa in ay qaxootigaas qaataan. wadamada Spain iyo sidoo kale wadanka Portugiiska ayaa waxaa la sheegay in ay qaataan 141 qof ee qaxootiga ah ee hadda badda laga badbaadiyay. waxaana xukuumadda Madrid ay sheegtay inay aqbali doonto 6 kamid dadka halka Portugiiska isagana uu soo dhaweey doono 30 kamid dadka haray. waxaa kala qaybsan doona wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo sidoo kale wadanka Luxembourg. dowladaha wadamada ayaa sida saxaafadda u sheegay. diyaarad waa markaa doon siday dadkaas oo bac ka samaysneed ayaa waxaa 5tii maalin ee lasoo dhaafay ay dul haabeysay badda. ugu dambeyntiina waa la soo badbaadiyay. qaxootiga ugu faraha badan ee soo geli lahaa wadamada Yurub ayaa aad u yaraaday sanadihii lasoo dhaafay, laakiin dadka soo gelaya aysan weli dowladaha wadamada Yurub aysan wax go'aan ka gaarin. وهاجاك داود يعني أنت سينكسو قبل يا ما أنت برامج كي أرمها وررك عالم كا أو قضبة دورة إنه كسو قاضني
inta aynu qodobo kuwan lamid aynu ku kulmi doono waxaan idiga tagayaa sida ay nabadgeliyo. haddii se aan ugu cusub tahay fadlan subscribe dhabageena youtube-ka ee warqaad tube. inta ka horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.